weligaa ma ku fikirtay waxa ka dhiga dadka qaar in dadka agtooda laga jeclaado, in dadku ay jecel yihiin inay la fariistaan ama la sheekaystaan, halka dadka qaarna aan dadku jeclayn oo ayna rabin inay la sheekaystaan. Weligaa adigu ma ku fikirtay in dadkoo dhan ay ku jeclaadaan, in dadkoo dhan ay ku farxaan sheekadaada, la joogaaga iyo kaftankaaga? Haddii aad raadinaysay inaad ku guulaysatid dadka kale jacaylkooda, maanta waxaan kuu hayaa 5 tallaabo oo si toos ah ku geynaysa qalbiyada dadka kale. Fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqatay channelkan, subscribe saar, like-na dheh haddii uu ku cajabiyey muuqaalkan, lana wadaag asxaabta inta aad isleedahay uu anfacaya muuqaalkani. Noqo qof wax ka eega dhanka wanaagsan. Dadku waa 2 qof, mid wuxuu raadinayaa oo keliya meelaha khaladka, midna wuxuu raadinayaa meelaha wanaagsan. Waa sida shinnida oo kala mid. Shinnidu waxay mar walba geedaha ka qaadataa qaybta carafta leh ayay mar walba ku dul degtaa, halka dadka qaarna la mid yihiin sida dakhsiga oo kale. Wuxuu raadinayaa oo keliya meelaha xun, wuxuu mar walba ku dul degaa meelaha aan fiicnayn. Waanaad aragtaa farqiga u dhexeeya shinnida iyo dakhsiga. Sidaas darteed, mar walba isku day inaad wax ka eegtid dhanka wanaagsan. Ogowna dadkoo dhan waxay leeyihiin khalad, ma jiro qof aan khalad lahayn, balse waxaad ogaataa inay badan yihiin meelaha wanaagsan. Dhoolla caddee. Waxaan garanayaa muddo ku dhow 5 sano, weligayna ma arkin ilkihiisa. Runtii ma garanayo inay ilka u soo baxeen iyo in kale, sababtoo ah weligay ma arkin isagoo dhoolla caddaynaya ama isagoo faraxsan. Dhoolla caddayntu waa shay cajiiba runtii ood ku kasban karto qalbiyada dadka kale. Haddaba ku dadaal inaad dhoolla caddaysid. Run badan. Noqo qof run badan. Beenta ma jecla dadku sidoodaba. Ogowna si kastoo ay runtu u qaraar tahay, iyada unbaa ah midda ugu muhiimsan. Waxa uu yidhi nin dadka caqliga u saaxiibka ahi, anigu kuguma caraysin inaad been ii sheegtid, balse waxaan ka caraysnahay sidaan mar dambe ku rumaysan doono. Qofkana haddii been lagu barto, way adag tahay in hadalkiisa dib loo rumaysto. Ugu yar magacay ugu jecel yihiin. Qof walba waxa uu jecel yahay magaciisa, waana hantida ugu muhiimsan ee uu leeyahay. Magacayga, magacaaga iyo qof walba magaciisa waa waxa ugu qaalisan ee uu rabo inuu maqlo. Haddii aad dadka ugu yeertid magacooda, waxaad hantiyeysaa ama hananaysaa jacaylkooga shaki la'aan. Haddaba ugu yeer magacda, khaasatan magacda ay ugu jecel yihiin. Mahadcelin. Wax yar iyo wax weyn wixii lagu qabto ama lagu siiyo, u mahadnaq adigoo ku ammaanaya ficilka ay sameeyeen. Mahadnaqu waa furaha lagu soo jiito qalbiyada dadka kale.